Halo. Chimini ichi idaa yamini gemani wandu amini daawadayaal sidaad u jeedaan askarigan ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed oo degmada Baraawe deegaankiisa uu yahay kana difaacaya cadowga waxa uu leeyahay idaacadda ciidamada qalabka sida ee wariyaasheeda u soo dhawaada degmada Baraawe isagoo ku hadlaya afka looga hadlo ee degmadan dadka Baraawe ay caan ku yihiin degmada Baraawe ayaan hadii ilaahay halkan ka shaqeeya 6 sano ma tagin ilmahayni iyona qoyskii iyona xaafadii aan ka dhashay ma aan u tagin haatan waxaan ku sugannahay deegaano hoostaga degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose degmada Baraawe waa degmo dhinaca xeebta dhacda ee gobolkaasi Shabeellaha Hoose waxaana ay kaabiga ku haysaa gobolka Jubbada Dhexe waxa ku sugan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo muddo haatan laga joogo 6 sano ka xoreeyay maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab waxa degmada Baraawe markaasi saldhig u ahayd horjoogayaasha sarsare maleeshiyaadka Al-Shabaab iyadoo aynu ognahay in qaarkood halkan lagu laayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tan iyo markii sanadkii 2014 bishii afraad ay soo gaareen degmada Baraawe waxay bedeleen dhaqankii halkan ka jiray oo ahaa in markaasi maleeshiyaadka Al-Shabaab dadka ku dhaqan degmada Baraawe ay markaasi dhibaatooyin badan u geysteen oo ay kamid ahayd in markaasi guryahooda si qasab ah ay ku degeen sidoo kale to waxay sameeyeen caruurtoodii ay si qasab ah uga kaxaysan jireen iyadoo ay raacsan tahay in xoolo baad ay ka qaadi jireen sidoo kale dadka ku dhaqan degmadan ayaa waxa kamid ah dhibaatooyinka heystay inaysan sida loogu talagalay aysan u cibaadeysan karin magaaladani waxa waaye waxay uga howlgalaan si xayaat leh ciidankan aad iyo aad amnigeeda u sugaan ilaahayna waa nagu guuleeyay waxa ilaahay mahadiisa inaan meeshan 7 sano aan joognay oo aan nimiday 2014 bishii 10aad intaasna waxa waaye cadowgu nagu soo weeraray muddo 3 jeer oo isku day in ma afjaro inta weerarada iska yaryarkaana waa wax tira koob ma lahayn waa isragnaa maalin kasta wax la xisaabi karo ma ahan marka ilaahay waa wax looga mahad celiyo waaye idinkuna aad iyo aad ugu mahadsantiin maadaama jiid hore nagu soo booqateen idinkoo idaacadda ciidamada qalabka sida oo halkaan in aad si fudud ay ku soo gaartaan aysan fududeyn annaguna waxaan bixinaa juhdi aan la sheegi karin inta uu leeyahay taxadigiisu marka shacabka aad iyo aad aan u ammaan gelinaa si ciidamadahan amnigooda u sugnaa dhibaato ay nagu qabaan ma lehin waxyaabaha iska xaaladda jahdiidka oo cadowgana waxa waaye waxaan ula tacaalnaa si naxariis daraan ula tacaalnaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururka 25aad guutada 6aad ee qaybta 6aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku sugan degmadan qaarkood muddo 6 sano ah inta badan askarta ku sugan halkan iyo saraakiishoodaba ma aysan arkin xaasaskoodii caruuradoodii iyo waalidiintoodii iyo familkoodii iyo markaasi xaafadihii iyo magaalooyinkii ay markaasi deganaayeen waxaana halkan ay u joogaan sidii ay u difaaci lahaayeen dalkooda isla markaana ay uga xoreyn lahaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab qoyskii aniga maxaan jiray xaaskiigana ilmahay muqdisho ayaa hadii ilaahay halkan 6 sano ka hor ayaa ugu dambeeyeen ma aan u tagin 6 sano intaan joogaa difaacana joogaa Maxamed Muuse Maxamed idaacadda codka ciidamada qalabka sida deegaanka Ceel Abakar degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose